Shakira ayaa qalbigeeda ka hadlaysa muuqaal la soo dhigay Instagram-ka Sabtidii ayaa fanaanadani waxay ku sheegtay inay ka dhaawacantay waxaysan weligeed ka hadlin. Shakira ayaa la wadaagtay asxaabteeda Instagram-ka muuqaal qarsoodi ah oo muujinaya qof ku istaagaya wax u eg wadnaha bini'aadamka. Shakira ayaa qortay qoraalkan oo ay turjumaadiisu u dhignayd sida tan: weligay waxba ma odhan laakiin way dhaawacday, waan ogaatan way dhici lahayd maruun. Ma cadda waxaa 45 jirkan fanaanada ahi ula jeedo hadalkaasi, balse taageerayaal badan ayaa isla dhex maray in arrintan xiriir la leedahay kala tageedii horeeyadii iyo ninkeeda, iyadoo taageerayaasha ay faallooyin ka dhibteen si ay taageero ugu muujiyaan fanaanada oo qiyaastooda ugu fiican ka fiirsaday waxa ay Shakira ku sheegayso qoraalkeedan macnaha qarsoon leh. Boostigani ayaa ku soo beegmaya wax yar kadib markii ay Shakira ka hadashay kala tagooda xiddiga kubadda cagta ee u ciyaara Barcelona, iyadoo ku sheegtay wareysi ay ku bixisay bishii June. Shakira iyo lamaanaheedii hore ayaa waxay ku dhawaaqeen bayaan wada jir ah inay isku waafaqeen kala tagooda kadib muddo 12 sano ay wada jireen. Waxaan isku dayay inaan xaaladda nolosheeda ka qariyo carruurtayda, sababta aan sidan u sameynaya waa inaan iyaga difaaco, waayo waa hadafkayga koowaad ee nolosha ay wareysigani ku tiri Shakira. Shakira ayaa waxay sheegtay in xiriirka ay la lahayd Big oo markii hore ahaa mid wanaagsan uu isu bedelay mid faquuqa oo xumaaday ciwaanada fadeexada ah ee kala tagooda lagaga hadlayay darteed. Iyadoo xaaladani ka hadlaysa ayaa waxay tiri: waxaan u maleynayay inay ahayd saacadii ugu madoobayd ee noloshayda. Inkastoo ay dooratay in aanay kala hadlin jacaylka Big iyo saaxiibtiisa cusub ama eedeymaha sheegaya inuu iyada khiyaameeyay, Shakira waxa ay sheegtay in muhiimadda ay tahay inay si wada jir ah u wada korsadaan carruurtooda, iyadoo aan loo eegin sida ay wax ku dhamaadeen ama sida aniga iyo Big aanu isku dareenka ka nahay in aanu nahay lamaane hore, isagu waa aabbaha carruurtayda. Waxay hadalkeeda sii raacisay: labadan wiil ee cajiibka ayaanu shaqo u haynaa, waxaan aaminsanahay inaan ogaan doono waxa u wanaagsan mustaqbalkooda, riyooyinkooda nolosha iyo waxa xal cadaalad u noqon kara qof kasta oo ku lug leh iyaga noloshooda. Waxaan rajaynayaa oo aan qadarin lahaa haddii firaaqana loo siiyo si aan u gaarno arrintaasi. Shakira ayaa dhinaca kale waxa ku socda dacwado lagu soo oogay kuwaasi oo sheegaya in iyada lagu leeyahay cashuur fara badan. Haddii arrintani lagu helo ayaa waxa ay Shakira wajihi doontaa khatar badan.